الضياء لها يا قمر، لا تهدي الضياء لها يا قمر. nolosha iyo hadafkeeda, why we are living, maxaynu u noolay, what is the purpose of life, nolosha tan maxay tahay, danta laga leeyay, waxaynu u joognaa halkan maxay tahay. rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa miisaan dhaba oo aynu ku qiimaysanno fawska. ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyay kullu nafsin daa'iqatu اlmowt وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلهي قرآن كوحولي نف ولبوي جيريونسة نرشو تنلتشوغا وحسيس عنا يماه مهما كان لديك من مال وسلطة ونعمة ويتقي سبالي wax kastoo agtaada yaalla nooc kastaba uu yahay waad ka tegaysaa, waad geeriyoonaysaa baa lagu tilmaamay. wainnamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama, waxaa laydin dhammaystirayaa waxaa shaqaysateen baa ilaahay leeyahy maalinta qiyaamaha. adduunka haddii wax lagaa siiyo waa dhadhansiin, waa lagu dhadhansiiyey, wax weyn maaha. laakiin wixii aad shaqaysatay cimrigaaga aad ku bixisay, insaanku ra'su maalihi waa sanawaadkuu nool yahay. wixii aad shaqaysatay waxaa lagu oofinayaa, lagu dhammaystirayaa aakhira baa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala yowma alqiyaama. sidaa awgeed waxaa lagu xidhayba miisaanku inuu labadan eray yahay, faman zuxzixa can الnaar waudkhila aljanna faqad faaz. ninkii naarta laga dhufto ee naarta la weydaariyo ee janno la geliyaa, kaas baa guulaystay baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala. guusha dhabtaa qofka gaadhay waa qofka kan. markaas aayadda ilaahay haddana wuxuu ku gebagabeeyey wama alxayaaةu اddunyaa ilaa mataacu اlguruur. nolosha adduunna ma aha mid kadsani waxuu bedhbidhsado mooyaane. yacni nolosha adduunyo waa mataac, laakiin yay mataacu tahay ee ilmaqruur, ku la kediyey, ku aan caqliga si fiican u isticmaalin baa tan nafmooda. wuxuu yidhi rabbiyow cisadaadan ku dhaartee waxaan ka baqayaa wax galaba ila waayo, wax galaba ila waayo. أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى أيائنا أبو ري isagaana ina yaqaana. rabbi tabaaraka wa tacaala markuu ina abuuray waa ina imtixaanay. degmadan iyo daartan aan joognana waa daaru ibtilaa waاkhtibaar, waa degmo imtixaan, liyandura kayfa tacmaluun, si laydiin fiiriyo bal waxaad samaysaan ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala daartan laydin keenay. allah tabaaraka wa tacaala imtixaankaasi meesha uu ku jiraayo waxa weeye naftan ilaahay inugu abuuray waxay jeceshahayna dhulka waa yaallaan, waxay necabtoo ayna rabinna waa yaallaan. meeshaas weeye meesha imtixaanku yaalla. waxay naftaadu jeceshahay maxaad ka samaysay, waxay necbaytay maxaad ka samaysay. meeshaasaa dadku ku kala baxayaan oo ku kala hadhayaan. masiirkooda nihaa'iga ah iyo aayaha ugu dambeeyana janno iyo naar baa la kala aadi doonaa. sababta lagu kala aadayana waa uun middaa, imtixaankii ninkii ku baasay ma'aalkiisu waa janno, imtixaankaa ninkii ku dhacayna ma'aalkiisu waa naar. allah tabaaraka wa tacaala waa awoodaa addoommadiisa inuu kulli wada janneeyo, sida uu awoodo kulligood inuu wada naarta geeyo. laakiin xikmaddiisa rabbi waxay ku dureersatay tabaaraka wa tacaala iyo cadaaladdiisa inuu cid walba camalkiisa ku abaalmariyo. innamaa hiya acmaalukum uxsiiha lakum. sidaas daraaddeed waxyaalaha daacaadka ilaahay jecel yahay ee jannada lagu galo naftaadu ma rabto, mana jecla.
kumana faraxdo way diidaysaa way ka xajiimoonaysaa way ka didaysaa waa wixii dantaada ahaa قل يا عبادي الذين أسرفوا سبب النزول كي يقول شيخ إمام أحمد وحشي نكي قاتل حمزة نكي حمزة دلي ما كمر قلنا بيقول صوق عليه الصلاة والسلام أيو تبي ودعوي وحش هذا كعب حسد الله يقولوا كعبوت كذبتك ويارا حيبتها lagu soo gaaray isagoo damacsanba inuu ka soo tallaabo jasiirat al-arab oo ardul habasha u soo gudbo markaas ay waxshi rasuulkii ilaahay baa ka weydiiyo ku yeedhaya subhanallah aniga maanu xamza dilay oo adeerkii dilay oo mushrika oo zinaystay sawta diintiinu sheegaysa ma والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يدو شريعة محمد يدو أي شيء يسو وفق إلهي غير كي عابدا إن بني آدم نقويا إذن يسا إن عذابك الله بالله بايو إن تاب أن يقوى كل عيه بل أرض محمد يسو ويدي يقول الرخصة بوس أن دين الإسلام كسوق لما الله يهيا مركب الصحابة دي صون نقدين رسول كان مكوجو يمادين عليه الصلاة والسلام مركز النبي أقري إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما آياته قرآن كمركي وحشي اللي كر أخرينا وحول إلا من تاب وشردك كوبا وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا شروطا سوي بدنته بالله أنكم مبوحين كريم بويد محاضرة waxay oran karnaa ama kelmadan oo ku jahaysan qofka muslimka ah habka uu u soconayo adduunyadan in noloshiisuna ay deganaansho ku heli karto warwarka iyo walaaca iyo walbahaarka iyo u qaadan waaga waxa la yiraahdaana uu kaga yaraan karo marka qofka dhibaatooyinka haday dhibaatooyin haystaan iyo haduu wax tabayo iyo diiqadu gali lahaa iyo duruufaha sidoo xallinayo ee aan ugu dawaqeen waa nasaaix iyo talooyin culimadu ay mufakkiriintii ka qoreen oo aynu soo urursanayno inta waqti aynu ka gaarno insha Allah aata koobaad waxa weeye fakkir washkur marka hore waa inaad fikirtaa ilaahayna u mahadnaqdaa subxaanahu wa ta'ala waxaad ka fikiraysaa wuxuu ilaahay ku siiyay faraha badan halkaad meel kale afka u taagi lahayd oo waxyaabaha dadka nolosha ka xumeeya waxa kamid ah iyagoo aad u sii eegaya wax ilaahay cid kale uu siiyay ilaahayna wuxuu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha nicmooyinka ilaahay haddaad tirisaan ma koobi karaysaan marka maxaa lagu siiyay caafimaad iyo cunno iyo dhar iyo dhooni iyo biyo iyo hawo hadda waxa aad hayso horta adigu ee dad badan aanu haynin taa ka fikir ilaahay wuxuu asbaqa calaykum ni'amah ظاهرة وباطنة إلهي نعموينكي سؤال دين كبدي نعمة موقتانا ويجرتاه مد قرصوننا ويجرتاه وأضمه تا قرصون وحي قرتان مركي وايان نعموين واحد جراء مرك هرأينان آد بو دريمين لكن مرك أو أضون كرافان نختار هذا وكوايو لعكتي سنة وكوايو أيو آد وقفكراو هذا ورطانينا ما بان درين سنين بيه iyaduna maciimooyinkay ku jirtaa
هذي سناد أي وناكسناتو وحك لأودن وي وناكسنانيسا نبي صلى الله عليه وسلم أسيغو نولش كسي تجيا صحابة يوسيدنا في غنيا وحوليا هاي هضيعنا صلاة الصلاة ومدي ساي أدر دارما يا وحوليا هاي صلاة هضيعنا أيوليا ودر دارنك نبي صلى الله عليه وسلم نبي مروك هدي قبضو صلاة أي أورد جرا صببتو محيتهاي صببتو أو حول كل ما يا وحيتهاي قلبي سنة كوها حيسنة يسال كلنك بقرك متك أبورتي أدونك نعرك إلهي سبحانه وتعالى بلال أي وعي وحليها يا بلال أرحنا بها يا بلال صلاة نقرأ حي بلال صببتو إلهي سبحانه وتعالى لكلنك يسايو جعلا أدونك أودن عريرة هديكو نقطو أدونك أودن مجد هداد درينتد ددك أودن أديكو ظلميان كوحنتان كوغسو جيستان الباب والبهديك حرمتو دينت أي كوغو زيادو حنونك أي كوغو زيادو والله هل الباب أياجرتو صلاة دأو استاكتد إلهي سبحانه وتعالى أيا كن فيكون وحانا سوت قال أهن أيو سوت قال كدقيا وشيء عجيب صلاة دا قفك مول ضدو حفظيو إلهي سبحانه وتعالى أيا حفظنا سببتو إلهي سبحانه وتعالى انت النحريسة ومتك ونحريس بضن إلهي سبحانه وتعالى الصلاة متك أغوري وحيتها وصلاة مغول بقفك صلاة وحفظيو ومغول بالله سبحانه وتعالى وأسي دوادو